والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الإسلام aad iyo aad baan ugu mahadinayaa studio Madaxtin Production oo aan maanta ku suganahay halkaas ay igu casuumeen gaar ahaan qaybtiisa Balbusle. waxaan maanta halkan ugu imid inaan mataqaanaa casuumada igu fidiyeen in aan ka hadlo barnaamijkii doorasho qof iyo cod oo muddooyinka ugu dambeeyay dalka ka socday. barnaamijkaas oo ay ku dhawaaqday dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddooyinka qodobkooda waxaan ka dhigay in wadankii marka koowaad mudnaanta in la siiyo ay ka jidho maxkamaddii dastuuriga wadanka in ka jidho maxkamaddii dastuuriga haddii aysan wadanka ka jirin dee wax qabsooyo ma laha. waxaa loo baahan madaxweynuhu inuu marka hore saato maxkamadda dastuuriga horta waa inuu maxkamadda dastuuriga dhisaa oo waxaan macnaha kala hagaajisa yani hadda laba xisbi hadda ku guuleystay nidaamkii doorashada labadii xisbi ma waxa la oranayaa maxkamadda ciidanka qalabsada Maxamed Banaadir baa loo yeerayo kala saartay la oranaya way maxkamadda dastuuriga jidha le maxkamadda dastuuriga ma jidha Soomaaliya waxa jira maxkamadihii gobolada Nugaal iyo Maxamed gobolka Nugaal iyo tan Bari iyo tan Banaadir tan maxkamadda noocaas jira laakiin ma jidha maxkamaddii dastuurka ugu sarreeyay wadanka ma jidha. marka madaxweynaha Soomaaliyeed ma rabo in uu dhiso maxkamadda dastuuriga لأن أدو الإسلام عقد الدستوري أصلا قوانا صار بري كمالا مرة نور مرة إنه الإسلام محكمة الدستورية ما قرأته مرة قلب كاس وهرتو وفير إمبورتن قلب كاس ومحكمة السلامات السيو دي ياكل صاري لبضع حزب هدو لبضع حزب ياكل صاري هدي إسكو قبص الدور شيء إسكو قبص وحزب قال أنا أقول سنة حزب أنا أقول سنة محكمة الدستورية لو تقلنا ما تشدو محكمة مركز عيدهم قالوا كسيدي وعند قلب بنادر ميا لو يرى الله حلقة صار معقول من قانص مركز حاجة بدن باتي قلبضة waxaa kamid ah in ay jirin cilaaqaad ka dhaxeeya maamul goboleedyadii wadanka jiray ayadoo ay dawladii aysan u sameyn dib u heshiisiin ay u sameyn oo yaani wada tashi badan ay isla sameyn waxyaabo noocaas ah kamid ah waxyaabo qodobada ay u qabsooneen oo muhiimka ah in hadii yaani ay wada shaqeyn ka dhaxayso maamul goboleedyadii oo wada hadal iyo mataqaana ay ka dhaxayso marka wax badan baa la meel dhigin kara wax badan baa lagu heshiin kara laakiin inta aysan waxba wada hadal ka dhaxayn oo aan wax badan lagu heshiin wax badan baa tafaraaruq badan baa ka imaanaya. waxyaabaha kale oo muhiimka waxa kamid ah qodobada kale waxa kamid ah in aysan jirin nidaam wacyigelin macna bulshadii wixii in loo wacyigeliyo oo bulshadii ilaa min gobol ilaa tuulo ilaa degmo ilaa qofka uu magaalo ilaa baadiye in la gaarsiiyo barnaamijka oo laga dhaadhiciyo barnaamijka oo doorasho qof waxa tahay laga dhaadhiciyo dadkii la fahansiyo wixii la fahansiyo laakiin hadii dadkii bulshada loo gooyo iyadoo wixii aan ka dhaadhacsayn fahansin dib badan baa dhacaya oo wixii in la isku fahmayo oo hawl badan iyo dhibaato badan ay wadan ka dhacdo dadka ay fahansaneen caqabad badan ay soo wajahayso marka dadka bulshada aan fahansaneen barnaamijkaas doorashada qof iyo cod waxa qodob waa kaasi waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxa weeye in aysan jirin tirkoob aan dadkii bulshada soo tirkoobin muddooyinka ugu dambeeyay macnaha tirkoob ay jireen laakiin tirkoob sax aan lahayn qodobkaas waa qodob sax in macnaha yaani la sameeyo tirkoob la soo sameeyo gobolada dhan degmooyinka dhan wadanka dhan tirkoob loo sameeyo sax la keeno. qodobka saddexaad waa kan afraad aan dib u noqdo waxa weeye waa in la sameeyo horta nidaam mataqaana looga hortagin karo meelihii mataqaana la haystay oo kale xoogagii mataqaana xaq jirka ama argixisada looga hortago nidaam looga hortago oo ciidamo ah in la sameeyo oo ciidamadaas yaani ciidamo taysan ama booliis ha noqoto ama military ha noqoto dhan walba waa in la sameeyo ma jiraan ciidamo hadda aad u ballaaran oo wadanka hadda ka shaqeeya laakiin ciidamo yar waa jiraan hadda tababar loo furo la sameeyo waa jiraan laakiin ma aha ciidamo ku filan amniga oo qofkii maanta doorashadii mataqaana ka qayb gala ama codkiisa dhiibta ilaa waxa jiraan wadamo deegaano badan oo la haysto aysan mataqaana muhiim noqonayn in ay ka qayb galaan haddii ay ka qayb galaanna ay yaani mataqaana doorashada ay ka qaybaan dadkaas ka qayb galaan ay dib badan ay ka raacayso oo amnigoodii waxa loo baahan yahay ciidan suga amnigoodii yaani ciidan suga loo baahan yahay amnigoodii waxa sidoo kale qodobka shanaad waa in deegaamada la xoreeyo dib u habeyn lagu sameeyo deegaanadii oo xoreyn lagu sameeyo deegaanada badan oo maqan
waxaa ka mid ah deegaamada hadda koonfurtaas shabeellooyinka meelo badan waxaa jira hadda ay haystaan xarakooyinka ay haystaan argixisada in ururadaas mataqaanaa laga sifeeyo deegaamadii ay haysteen oo kale oo dee habeen lagu sameeya halkaas ciidamadii dowladda la wareegaan baa looga baahan yahay marka maadaama aysan taasi jirin waa qodobada caqabadaha ka hor imaanaya mataqaanaa in aysan doorashadii aysan qabsoomin oo halkaas deegaano badan ay ku maqan yihiin degmooyin badan ay ku maqan yihiin oo la haysto marka waxaa loo baahan in deegaamadaas la xoreeyo si macnaha doorashadii ay u gaadho haddaysan aysan ka qayb geli karin maxay u tarasaa doorasho qof fiicda degmooyin waa muhiim degmooyinkaas inay yani ay doorashadii gaadho bulshadaas la xoreeyo marka qodob kale waxaa weeye dhaqaala qodobka lixaad dhaqaala ku filan wadanka doorashada uu ku gelin karo ama uu ku wajihin karo ma leeyahay ama ma u yaala ama ma u kaydsan yahay waa maya waa in horta dhaqaalo badan la sameeyaa dowladdu ay ku qaban karto nidaamka doorashooyinka ma ahana wax fudud ma ahan waa nidaam aad u ballaaran oo laga soo guurayo nidaamkii hore ee jiray marka waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa dowladda u diyaarso dhaqaalo badan ay ku wajihin karto halkaas waa inay dowladdu sahay u haystaa yani sahay waa inuu haystaa ay ku dagaalgelin karto dowladdu oo halkaa ay ku wajihin karto qodobka toddobaad waa in la sameeyaa wadahadaladii Soomaaliya iyo maamul goboleedka Somaliland in iyadoo dib loo noqdo maadaama ay safariisan kackac badan oo ku jiro wadahadaladooda ilaa laga soo bilaabo Xasan Sheekh Maxamuud oo safariisan wadahadaladaas oo macnaha dib loo cusboonaysiiyo si mataqaanaa loo wajaho doorasho qof fiicda iyaguna oo qayb qaataan doorashada qof fiicodka ah qodob kale jira waxa weeye in la sameeyaa nidaamkii doorashooyinka dowladda hoose doorasho qof fiicda ma dhacso ilaa nidaamka doorashooyinka dowladda hoose waa in la sameeyaa markii macnaha la wajahayo dowladda oo waxyaabo badan oo waxa jira base oo ka horeeya intii aan doorashadii qof fiicda madaxweynaha aan la gaarin waxyaabo badan oo ka horeeya jira oo base ah marka waxyaabahaas mataqaanaa in la soo sameeyo oo aan lagu boodin doorasho qof fiicda aan lagu boodin waa in waxyaabaha ka horeeya oo xayndaabka waa in la soo dhameeyaa marka hore aad iyo aad baan mahadsantihiin maanta xagaasan ku soo koob intaas ku soo koobiya warbixintayda aan kaga hadlayo doorashada qof fiicodka